أنا وحاسميني مركب مال مركب business بلو بيزيد وأنا scale كواحد اللي هذا إن business كاس كريمة سمية أو إنتلك بكريمة سمين كريه ويان الله مستعان هذا وحنا صارينا charts أما إسبر بردك بنكو سمينا إنتو online business يجتا إنه استعمالنا قاعدة داس هذا الكمبيوتر كان سوق هذه دونا وحنا step by step ودرس تاجي دونا مدول فرصتها هي عقبتها وليه أوكي صاحبي الواحد سوق هذا الكمبيوتر كيجي إن كوجهرين الله مستعان إيه إنه حوين business كوجهر السنة إيه إنه حوين forex trading أما forex السنة نقطة forex نوع لو تريد كريا كريبتو نوع لو تريد كريا الله مستعان لبضو ده ولا تريد كريا forex سيادو بلوديد محل وبهانتاي starting capital كا وحاول بهانتاي إن العقد هيستيد وايو أنت سكيل جرين كرتيد أما العقد العقد يروح بلاد كرتا $100 بتجلين كرتا $100 بتجلين كرتا لكن سياد وحنا لا شيء هذا أما كون كاجا دولار وجهرية أدوجو سميسيد أونلاين كا especially وحنا حدا كوك ياسين نابا سليبات كون كاجا دولار وجهرية كسمين كرسا أوكي مركز فوركس بلا بيسيد محي كاجا بهانتاي وحي كاجا بهانتاي إن العقد هيستيد أو العقد أي هيستيد أي كاجا بهانتاي طلبات كاجا بهانتاي وحويان time requirement وقت إنتلك بكاجا بهانتاي وقت كاجا بهانتاي وقت دير forex قف الله مستعان أنتو بيشان بلابي إسلا بيشي كحيجيبا العقد بدن سمينية ما أرجع الله مستعان ضد بدن العقد كله سكرية وأنا صاحب بدي كوتشران نحن صاحبنا هيبقى 2022 يا 2023 أيقول إني وصاحب forex بنجليا مش أصلا العقد صباح يا أوكي وحنقول let we look الله مستعان and he was so excited أدو excited وجوها one day I let go him مدة 2023 يوردن بنأجنا مس 2022 يوردن بنأجنا 2022 يوردن إنه وحكسو صاريس كداية العقد تيسي بلوس كري العقد شنكون إلى 10 دولار أيو كلوس كري يسنة وقت جيسية مركا ضد العقد سمي ويتشران maaha inaan leeyahay forex trading cid kasto ka hadasho way xuntahay ama malihi laakiin aniga aragtideeda ku saabsan forex qofna kula mataliyeen difficulty waa medium ina barata xirfadii oo charts iyo waxyaabi baratid iyo soo shaqeeyo soo waxeeyo waliga kuma train grade riskiga leedahay waa high in lacag loos gareysid forex waa aad bay Allah msacaan u badan tahay oo lacag in loos gareysid way fududahay سايب باللعب كله سكرين كرتا إن سكيل جريسيدنا لعب بدن بكاجا بانته والله مستعان سكيل نسميست أرنك كلاس نكو حيجو حويا ويشران الله مستعان ضد العكس سمعنا هي ملي هي الله مستعان ويقلتن تهاي which is good الله مستعان هذا تقول سنة لكن انتها شارت إنه ريالا ولعكت تكون بلا بيسيد وقت جاي كقاعدنا سو difficult level كإلا هاي risk إلا هاي سكيل كابك الله مستعان إن التلك بد سكيل جرين كرسا taasna waa talabaad waxa weeyaan iyadna product iibsid inaad alaab soo iibsatid alaabtina Turkiga ka iibsatid China ka iibsatid wadankii aad alaab ka soo qaadatid guriga soo dhigatid alaabta deeta iibsid dad badan oo ka hadla jirto TikTok kaga hadla meel kale kaga hadla waxaan xasuustaa 2020 I think video xaga bani soo dhigi doonaa Snapchat kayga waa ku jira 2019 kii May 2018 kii ayaan bilaabay business kaas khamiisyo la nooga soo diray Bangladesh lacag dhowr kun aan gelinay Allah msaan ciid ba imanisay deeta inaan wax ka soo saaray iska daayay khamiisantii ilaa iyo hadda ay guriga yaalaan marka product sameynaysid product waa inaad weydiisaa ama waxana business kan bilaabayo way jirtaa walaalo badan oo ama Europe ha ku noolaadaan ama wadankii ha ku noolaadaan oo intay product dalbadeen oo productkii loo keenay especially skin care ka iyo waxyaabahaas oo fiican yihiin waxyaabaha la xiriira oo product inta loo keenay deeto lacag fiican ka sameeyay way jirtaa oo malihi Allah musta'an laakiin se waqti bay kugu qaadanaysaa inaad samaysid sidoo kale 2020 giban dib u bilownay deeto waxaan soo iibinay alaabaha guryaha lagu shasharaxo ana lost Allah musta'an marka waxyaabo badan oo marka product soo iibinaysid waa inaad isweydiisaa productkan waa product caadiga la taaban karayo ama book ha noqdo ama cover ha noqdo ama dhar ha noqdo wax kasto product oo la taaban karayo Allah musta'an productkaas midda kale hadii markaad faa'iido ka samaysid waxay kaaga baahanaysaa inaad restock ku samaysid 2022 ayaan Allah musta'an ayaan maalgelinay company sudadkii waxyaabaha sameeyay deeto markastoo lacag kaaga soo baxdo waxay baahantahay in lacagta aad ku celisid so it is hard Allah musta'an physical product qofna kula matalnay waayo the online marka la eegay maanta is different Allah musta'an lacagta kaaga baanta waa lacag haya oo inaad 1000 2000 3000 4000 5000 aad gelisid bay kaaga baantahay oo Allah musta'an aad gelisid deeto taas aad samaysid Amazon isaga laftigiisu soo raaci karaya Amazon FBA talabaad time require ka xilligay kaaga baahan tahay oo waqti aad u badan inaad iibsid baa u baahan tahay inaad dadka gaarsiisid baa u baahan tahay and mostly I think 99% dadka product ka keena way difficulty ga waa hard medium baa la oran karayaa riskigeeguna waa low baa la oran karayaa oo
اللهم استعان wax ku luus galaysid waa physical kii wada haysataa arinka kale isna ku xiga scale inaad scale galaysid waa medium oo inaad maanta intaad meherad xagan ka furtid ama alaabtii inaad scale ku samaysid markasta lacagtaadii waa iyadin bas ku celcelin ay ku jiraysaa arinka kale isna ku xiga ee online income looga sameyn karayo waa inaad freelancer noqotid freelancer inaad bilowdid waxba kaaga ma baahna inaad xirfad fariisidid oo xirfad baratid kaaga ma xirfadaas ama video editor ha noqoto ama graphic design ha noqoto ama web design ha noqoto ama wixii la xiriiray ha noqoto laakiin xirfada inaad lacag ka samaysid waxay qaadanaysaa lacag kama qaadanayso inaad fariisatid YouTube ka baratid ama meelaha kale aad ka baratid waqti badan kama qaadanayso laakiin time require intaad baranaysid waqti bay kaaga baahan tahay inaad lacag samaysid Allahumma ta'ala oo lacag samaysid waqti bay qaadanaysaa waa high way adagtahay Allahumma ta'ala waqti bay kaaga baahan tahay talabaad oo ah difficulty-gaygu waa high iyo random baan oran karnaa waa qof beginner anu hadda qofkan la hadlay waa qof beginner oo raba inuu wax sameeyo inta kale adduunkan maanta joogno fiidiyoyadii hore waagi hore markaan soo sameyn jiray waxaan oran jiray dadka graphic design baro web design baro waxa soo dhan hadda AI baa qaadanaysa there's no way Allahumma ta'ala AI baa la tagtay graphic design iyo web design iyo waxa soo dhan saas baa lagu sameynaya sijeedka ayaa lagu sameynaya qof kasta isaga samaysan karay because of AI specific xirfad qofna kulama talin karayo unless una qofkaasi high agent ahayn unless anada ahayn qof business dhisaya anu dadkan raba inaan soo saaro ma rabo qof shaqaale inaan soo saaro waxaan rabaa inaan soo saaro qof business dhisa waxaan rabaa inaan soo saaro qof business dhisaya ayaan rabaa inaan soo saaro and the reason why ta kale riskigaygu waa low oo lacag kagama baxayso inaad scaling ku samaysid waa waqtigaagii afar imsa saacadood baa haysataa waqtigaagii lacag baa isku xiran waa adagtahay Allahumma ta'ala waqtigaagii lacagtuna way adagtahay midda kale inaad ku fiicnaatid oo xirfadaas aad ugu fiicnaatid it will take you minimally 6 months 6 months ay ka qaadan kartaa wajida xirfado kale oo high value oo Allahumma ta'ala kaga hadli doona oo selling ka mid yahay iyo waxyaabaha kale la xiriira YouTube Allahumma ta'ala YouTube is amazing place Allahumma ta'ala YouTube waa fiican tahay oo YouTube waa meel lacag laga sameyn karayo laakiin YouTube iyo coding labada xirfadood ay ugu adag inaad content creator noqotid oo content samaysid oo waxa ugu adag oo qof sameyn karayo horta lacagta kaaga baxayso telefoonkaaga kaliya telefoonkaaga xabadii ring light oo ku bilaabi karaysaa uma baahnid oo YouTube inaad ka haysatid markasta fiican tahay inaad ka haysatid dadka qaar aan jeclayn way jiraan laakiin meel lacag ban ka sameynaya tiraahdid maaha anu YouTube-kayga hadda YouTube-kaygu waa distribution system Allahumma ta'ala distribute gareeya businessyada iyo waxyaabahan sameeyo distribute gareeya laakiin YouTube inaan lacag kala soo baxo on creator content creator intaasoo muuqaal sameeyo muuqaal soo gelinayo aan lacag u sameeyo I don't think Allahumma ta'ala aniga audience-ka ay muhiim dadka ay muhiimka Allahumma ta'ala way jiraan dadka qaar saa u sameynaya laakiin anu the way aan YouTube u arko YouTube hal client iyo culus oo uu keeno oo $1 aan ka qaado ayaa iga faa'iido badan inaan 500 oo Allahumma ta'ala ama inaan 1 milyan oo qof oo aan dadkii saxda ahaan aanan gaarin marka YouTube fiican yahay YouTube blow baan ku leeyahay laakiin marka YouTube bilaabisid ha u bilaabin sidii dadka kale u bilaabaan oo YouTuber caan raba inaan noqdo ha orne niche-kaaga iyo waxaad sameynaysid ka hada YouTube ha noqon meel aad noloshaada ku document garisid YouTube ha noqoto meel aad xirfadaada ku gudbisid dadka dooranaysidna dadka kugu xirmayo aad bay muhiim yihiin anu ma rabo dad maal yani inay channel-kayga yimaadaan because the worst thing kugu dhici karaya waa in dadkii saxda ayna ku yimaad waagi hore waan ka fikiri jiray YouTube kor laakiin hadda YouTube intaan ku eegayay way isbedelay Allahumma ta'ala inkastoo fiican tahay markasta dad badan ay ku yimaadaan oo inaan ka soo jeedin Allahumma ta'ala laakiin dadka saxda 10,000 oo qof oo sax ah kugu xirma ayaa dhaata mawduucan baashan baan ku hay YouTube the reason why aan soo ugu dheereeyo taas time required ma ku baahan YouTube it will take years of your life 2 sanadood ba ugu yar hadda YouTube aad fartiin aad wax natiijo macna la ka keentid waa inaad 2 sanadood gelisaa waliba inay ka sii badataa macquul xirfado badan baad ku dhex baran kartaa oo high value Allahumma ta'ala sida content creation-ka wax badan oo ayaad ku dhex baran kartaa waa hagaag hadda business model-ka kale ku xiga muxuu noqonayaa business model-ka kale ku xiga ama online-ka lacag looga sameyn karayo waa dropshipping Allahumma ta'ala markay noqoto business-kan ku soo bilaabay I know a lot dropshipping inaad bilowdid lacagta kaaga baahan yahay waa almost waa lacag aad u yar haddaad organic dropshipping samaysid oo TikTok organic aad samaysid sidoo kale aad samaysid aad content create gelisid oo YouTube shorts-ka iyo TikTok gelisid iyo Instagram-ka viral ku noqoto income iyo lacag fiican baad ka samayn karaysaa lacagta aad ku bilaabi karaysid dropshipping waa almost zero so Shopify I think 3 shop free ku siinayaan iyo 3 bilood oo min $1 bixinaysid
supplier واحد استعمال ساديسرس اللهم سعان كاغا بحنا إن العك كاغا بحث سيدو كلا supplier كلا ولا هذه كريا جتا العك كاغا بحث وا low سيدو كلا اللهم سعان time requirement وبهي هي dropshipping marka laga hadlayo way jirtaa way xalaala iyo way allahum ta'aan aan xalaal ahayn marka insha Allah dilaha muuqaal baan iga soo sameyn doona aan ku dul istaagi doono sidee ayaad way xalaal aad ugu sameyn kartaa dropshipping insha Allah dilaha su'aalaha ugu badan ee la soo weydiiyo ayaa kamid marka way marka qaabkii culimada allahum ta'aan uga hadlayeen aan eegnay way xalaala insha Allah dilaha waan dul istaagi doona sidee supplier kaaga loola xiriira sidee allahum ta'aan loola hadlaa sidee productyada loo soo geliya everything insha Allah dilaha iyadna xilli gaar ka hadli doona laakiin hadda waxaan ku dul istaagina waqtigu kaaga baahan yahay medium inaad baratid sidee product lagu upload gareeya sidoo kale allah musta'an difficult level case waa medium baan oran karnaa riskiga inaad wax loo skareysid wax loo skareysid way aad bay yartahay waagi markan khamiisyada soo iibsaday in wadankayga keensaday way allah musta'an waqti bay ugu qaadatay oo waxaan loo skareeyay lacag $10,000 galiye alaabtii imika iska fadhida ilaa hadda alaabtii khamiisyadii meel bay yaalaan ilaa hadda riski marka kuguma jirto instead aad alaabta soo qaadan lahayd bal imika ka soo qaad dukaan baa rabtaa inaad furatid ama waxa ka soo qaadaa dukaan kabaha lagu iibiyo rabtaa inaad furatid dukaanka kabaha lagu iibinayo inaad China iyo ama Turkiga aad la xiriidid qof alaabtii ku soo diro markab la soo saaro alaabtii ku timaado beheradu kireysid kaba soo qaad $20,000 baa haysata $15,000 baad gelisay allah musta'an inaad alaabtii lagu keeno meel baad soo kireysatay credit baad bixinaysaa shaqaalada qaabsatay shaqaaladii balkiisa bixinaysa and then markaas bad ogaanaysa waxaan inay dad ku baahan yihiin kale dropshipping marka wixii dhanba meesha ka saar okay alaabtii aad ku fikiraysid rabtay inay iibisid online ka ku taskree inta taskreen ba dibadda keen alaabtu iska fadhida China warshadii ba dhex fadhidaay sidee baad allah musta'an isugu xiri karaysaa marka xirfadan dropshipping ku baranaysid is I think waa wixii ugu valuable sanaa ee nolosheeda bartay hadda business ma bilaabo ilaa waxaan taskraya waxaan baahimiyay ka jirta waxaan suuqa miyaa looga baahan yahay dropshipping waxaad baranaysaa copyright waxaad baranaysaa sida product loo soo raadiyo waxaad baranaysaa skillski allah musta'an web design baranaysaa waxaad baranaysaa videoyada baranaysaa sida content loo create gareeyo waxaad baranaysaa sidee allah musta'an aad tashaq nacam dropshipping inta xirfadoodeed ku dhex baranaysid is more valuable than the dropshipping itself inta xirfadoodeed dropshipping aad ku dhex baranaysid ayaa ka qiimo badan wax kasto dhan marka businessyada qaar baa jirta aad xirfado badan aad ku dhex baran kartid oo noloshaada dhisaya oo adigu marka hore ka fikireen laakiin noloshaada gadaal ka dhisay marka I'm big believer dropshipping aad buu fiican Allah musta'an aad buu fiican yahay lacagta ku bilaabi kartid waa low sidoo kalena inaad skill gelisid waa high Allah musta'an alaab badan aad iibsid way fududahay waayo adiga alaabtii kuma xidhna alaabtii worldwide shipping worldwide distribution ka hada dhacay ee ganacsiga Allah musta'an adduunka ka dhacay ayaad ku sameyn karaysaa business modelka kale ee ugu dhaqsiyaha badan haddii aad doonaysid $1,000 ee ugu horeeya inaad online ka samaysid this is the best business model aan oran karayo qof kasta bilaabi karaya dropshipping mid kale hadaa wadankii joogtid payment baa lagu xiraya way adkaanaysaa Allah musta'an wadankeeda joogtid dropshipping way kugu adag tahay waayo horaan sugu daynana payment siino horaan sugu dayna caqabad badan baa jirta oo dadka wadanka jooga markay dropshipping ka noqoto challenge ku noqonaysa laakiin dadka dibadda jooga dropshipping way sameyn karayaan hadaa dibadda joogtid car baad haysataa paymentkii baad haysataa addresskii baad haysataa wax kasto dhan baa Allah musta'an ku shaqeynay laakiin social media marketing agent qof kasta sameyn karay hadda waatan kaga soo hadlay Cadnaan waatan kaga soo hadlay gabadhii Naruro Allah musta'an kaga soo hadlay waatan Maxamed kaga soo hadlay dhammaantood waxay haystaan social media marketing agent inaad bilowdid maxay kaaga baahan tahay starting capital kaaga baahan tahay maxay waa zero waxaad u baahan tahay kaliya aqoon iyo xirfad aad suuqa geysid wadankii ma ka shaqeynaysaa ha wadankii iska daay tuulooyinka wadankii ku yaala ay ka shaqeynaysaa ta kale time requirement kay kaaga baahan tahay waa medium baan oran karnaa oo inaad $1,000 ugu horeysa business korto waa inuu yahay business aan wax loo skareynayn business markay noqoto business waan bilaabaya lacagna waan loo skareynayaa anu tan diidanahay waa taas business markaad bilaabaysid horta business kan taskree haddaan maanta 6 bilood fail garoobo oo 6 bilood fail garoobo lacag soo gali weydo miyaa wax loo skareynayaa may mar kaliya tood wax sameeysid ama client aad wax u qabatid ayaad soo celinaysaa 10 times more hadda waxaan joogaa Allah musta'an ku suganahay aan bariyahan oo dhan joogay Antalya magaalada dhacdo Turkiga ku taala maalin dhaweyd dentist baan tagay dhakhtar ilka check-in igu sameeyay dentistki insha Allah diray waxaan ugu bari doonaa Allah musta'an qaabka u shaqeeyay waan ugu tagi doonaa dentistki ilka ay xirayay I sell my service Allah musta'an ahayd inaan leaders u keeno
waayo waxaan garanayaa sida social media marketing dad badan waxa jirta magaaladan jooga marka magaalada dalxiiseed ku taala Turkiga ku taala magaaladan markaan joogo markaan u tagay waxaan ku yiri dad badan bay yimaada oo Mareykan iyo Yurub ka yimaada ay qaran xaysiiskaaga ku ran garan karaya appointmentka ku soo dab garan kara insha waxaan ku sameyn karayaa website-kaagan isdhex yaalan ku habeyn karaya anta waxaan taa ugu sameyn karin waxa weeyaan waa xirfadan leeyahay social media marketing agent hadda dhalinyar baan garanaya 18 jira oo Kenya jooga oo 700 800 900 kun kala baxa wadankii jooga oo kala baxa marka social media marketing agent is amazing time requirement kaaga baahan tahay Allah musta'an waa medium difficulty-ga Allah musta'an waa medium risk-ga lacagta kaaga baxayso waa low scalability-ga ama inaad scaling ku samaysid Allah musta'an scaling capital-kaygu waa high Allah musta'an qof bad u hayr kartaa sida loo hayr gareystay iyo sida loo sameeyo idna insha Allah dilaahda marka hadda walaalayaal waan isla fahanay online business-yada jira inaad financial trading samaysid siday u adag tahay siday yihiin waa charts waxa la yiraahdaa man lie woman lie numbers don't lie numberska ama datadu ama waxaan ka hadlaynay this is reality Allah musta'an qof muxuu business u bilaabaya lacagta ka baxaysa inay lacag yar tahay waqtiga ka qaadanaysa inuu waqti fudud yahay Allah musta'an difficulty-ga say tahay risk-ga inuu wax loos gareeyo iyo Allah musta'an scale-kayga in intellect buu scale gareyn karaya oo sameyn karaya with AI waliba maanta markay noqoto social media marketing is the best especially waliba dadka wadankii jooga dadka adduunka meel kasta jooga social media marketing agent service waa waxa loogu baahida badan hadaba sidee u shaqeysaa social media marketing agent ayaan ku dul istaagayna adduunka waa isbedelay business kasta waxa jirta magaaladan aduu aad joogtid iska dhex socotid business badan baa jirto alaabo badan haysta business-yadaas waxay rabaan inay alaabahooga iibiyaan alaabahoogaas deeta ma garanayaan marketing dadku intooda badan Allah musta'an bakhaare leeyihiin word of mouth waliba Soomaalideena intiina badan waxaan wax ku market gareyna waa garasho iyo macmiil hore iyo Allah musta'an alaabihii traditional marketing-kii hustle marketing-kii kaliya garanayaan ma garanayaan social media marketing soo shaqeeyo ma garanayaan copy-ga soo loo qoro ma garanayaan Facebook ads loo sameeyo boost bay isaga dhufanayaan ama wax kale isaga dhufanayaan ma garanayaan Allah musta'an qualified ma hadda intaan arkayn wadankeena ku soo arkay waa si fiican ma garanayaan marka social media marketing waa inaad iyagi marketing u sameeyay ama adiga sameyn karaya oo Allah musta'an ads ku ran gareyn karaya oo xirfad aan kugu bari doonaa Allah musta'an tool-kayga iyo sida isticmaal lahayd waan kugu bari doonaa ama qof aad u delegate gareyn kartaa which is inaad adu baratay ku fiican tahay oo xirfad waxaad u aad haysatid you can scale hadhow to Allah musta'an inta doontid baad diri kartaa marka taas oo dhaxaynaysa marka business-kii imika ninka dentist-ka ku sheegayay haddii aan 5 client oo min $2,000 ka qaado oo Hollywood smile uu sameeyo oo ka qaado haddaan u keeno waxaan u sameeyay $10,000 isaga maxaa lacag ka baxay waxba kagama baxayso Allah musta'an kaliya service-ka doctorku xirfadiisu u haysta markii horeba deeta markaan $10,000 aan u sameeyay anigu maxaan qiimaan u sameeyay qiimaan noloshiisa ku taray the reason why dadku ayna suuqa waxba uga sameeyeen because they don't have a value ma haya waxay provide gareyn karayaan oo miiska ay dul dhigayaan ma haya the reason why anigu travel gareynayo adduunka meel kasta joogaan lacag u sameynayo because I have a value-guna hadda waa isbedelay macmiilkayga maanta kuma xidhna meel kuma xidhna location any place aan adduunka tago unless computer iyo internet la siiyo waan ogahay inaan income iyo lacag sameynay marka social media marketing is the best way Allah musta'an had income iyo dakhli fiican aad ku sameyn karaysid saaxiib waxaan bilaabay